السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سودوا صاحبة قيمة هي قدرت مدن أكو حرن جنالك ولا لا فاميلي ومركل يا مقال عصوان ذيك قديارين مسلسلك ولا لها حلقة دي سودا بيسات تضبطني أفراد حلقة دي أقول حسها بدنا أهيد هدي حستين لو تضبط كار وحن وقاعدي إن ليلا قبردن لو ما قعبوا أي لما نسوا الصحافة لو ما قعبوا بيرسين أي فيليا أي شيكتا أي هاد أرين كان ليلانا تحنا أيضا تريلر كحتنا أريك waa la sheegay inay dhimanayso sidoo kale anaga xitaa kalsooni in ku qabnay ama waan garanay inay dhimanayso qof walba oo fiidiyoga caakif ama fiidiyo uu caakif yani arrimihiisa arka ama dee fiidiyogii qadiir dhimashadiisii aad markas inkastoo leela aragtay qof walba fiidiyoga arka ama wax dee khuseeya re'atakul waa u dhimanaya marka gabadhii leelahay xalqadii u dambeysay runtii sidaas ay taxan uga baxday inkastoo aad xalqadii ugu murugada badnayd season 3 haddaba ratingka xalqada runtii wuxuu hoos u dhac yar oo khafiif ayaa ku yimid laakiinse ilaa iyo hadda wuxuu ka mid yahay musalsalku saddex musalsal ee ugu daawashada badan gudaha dalka Turkiga waa tahay inta haddii aan kaga nimaan hordhac bal han guda gallo dhacdooyinka ugu muhiimsan xalqada 74 haddaba xalqada 74 bilowgeedii iyo bilowgood hore waxaan aragnay gabadhii Leila ahayd iyo dhulka taala sababtay dhulka ugu dhaceen waan garanaa taxnaa hal toddobaad ayuu maqnaa sanadka cusub awgiis haddaba waxaa sabab u ahayd Leila in ay jaranjartaas ka soo dhacdo gabadhii Suuse lagu magacaabayay ninkii Saarbi ahaa wax walba uu maqlaayay Leila iyo Suuse wixii dhaxmar waa uu maqlaayay inkastoo wada sheekaysigooda uusan aad maqal balse wuxuu arkayay Suuse in ay kala tuurtay Leila haddaba Saarbi wuxuu ku dhahayaa Suuse hadda laga bilaabo wax ma arag wax ma arag kadibna Saarbi waa uu dhawaaqay caawimaad ayuu dalbanayaa ugu dambeyntii waa la qaaday gabadhii Leila ahayd dhakhtarka ayaa la geenayaa dhakhtardan waxay sheegaysaa gabadha in maskaxda uu dhiig kaga furmay isla markaana nolosheedu ay gali doonto baqtiya nasiib runtii Dooruuk oo waqtiga isagoon xiligaas maqlaya degdeg ku iman doona inkastoo ahaa Dooruuk ninka kaliya aad ku garab taagnaa toolga haday noqoto isbitaalkaas sidoo kale isla xalqadii u dambeysay waxa aad iyo aad u fiicnaatay cilaaqada Umar iyo aabihii inkastoo xalqadii u dambeysay aan arkaynay inaysan Aasiya ku qanacsaneyn isku soo dhawaashaha Umar iyo aabihii haddaba dhanka kale gabadhii Aasiya ahayd waxay helaysaa shaqo ay helaysaa oo cusub oo tii hore aan ahayn shaqadan oo ka duwan tii hore oo isla markaana shaqadan waxa uga yeedhaysa gabadhii Gula ahayd waxa ku dhaysaa aniga waan ka soo tagay shaqadii hore shaqo cusub aan haystaa meeshana boos ay ka banaan ee Aasiya ay maad rabtaa in aad ka shaqaysid halkan kadibna Aasiya arrinkaas way ku farxaysaa shaqadiina way aqbalaysaa dhanka kale dhacdada kale oo ugu muhiimsan xalqadan waxaa kamid ah gabadh lagu magacaabayay Goonuul in ay ninkii odaygii lagu magacaabayay Orhan Benu sheegtay ku turaado uur ayaan leeyahay isla markaana waxa istir fikradan waa fikrada kaliya adiga Orhan aad gurigan ku sii wada joogi kartiin maadaama Orhan ogaaday Goonuul waxay sameysay inay Shinguul caawin weeday ayadoo dhalaysa isla markaana waxa ugu dhahaysaa Orhanow aniga uur ayaan leeyahay Orhana wuxuu ka laabanayaa go'aankiisii ahaa in uu furo isla markaana uurkan waa been oo waxay dalbanaysaa online-ka ay ka dalbanaysaa calool fake ah oo tii filimada ah balse nasiib wanaag maalmaha kamid ah Orhan isagoo maqaayadiisii yar ka shaqeynaya iyo xilmiyay oo la joogta waxa dhacaysa postal code-ka ama address-kii lagu soo waday calooshii fake ahayd dabcan ka dhigaysa dadka inuu qofkii uur leeyahay in uu odayga Orhan habiye kaga daato isla markaana sidoo bal fur waxaan Goonuul maxay ahayd haysato isla markaana xilmiyay ay ku dhahaysa waxaan naagaha beenta sheegaya ayaa isticmaala si ay soo dhigaan qof uur leh isla markaana odaygii intuu xanaaqo ayuu islaantii halkaasi kaga tagi doonaa Shinguul ayadu markii hore ka xanaaqsaneed oo ka naxday in ay qoftan Goonuul uur leedahay iyo odaygu u tagaya Shinguul ayuuna la heshiinayaa sidoo kale dhacdada xalqadan waxaa kamid ah gabadhii lagu magacaabayay IBK inay u yeedho beerkii maalmaha kamid isla markaana kiyara ay soo qaato kiyara magaciisa waan iloobe laakiin kiyara Shinguul dhashay oo ay u keento beerkii isla markaana ilmo yar oo kale la soo dhigo ilmo yar ay kalena ay soo qaadato isla markaana ay walaalkeed saa ku yar weydo xooga laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan walaalkeed way soo helaysaa Shinguul iyo Uljani waxay soo daba ordaanba walaalkood way helayaan sidaas ayayna ku celinayaan dhanka kale waxaan arkaynaa gabadh ay xalqadii tan ka horeysay ay Leila baratay oo yareyd haday xasuusatiin inkastoo aad arkaysay mid xalqadii intuu dambeysay gabadhaas muhiim ahayd kadibna toolga ayaa arkaya wuxuu dhahayaa mad xasuusataa yacni waxaan nahay wiilkii maalintii u dambeeyay islaantiireeda guriga keenisay aan u nimaanay gabadhii maalinta ay la socotay waxay walaashay kadib waxay ku dhahaysaa saax gartay ma gabadhii shideed ba walaasha ahayd yacni af Soomaali ahaan saas ku tilmaami karaa ayadoo waxay tiri ma gabadhii macaanid ba walaasha ahayd batri haddaba markaas kadib toolga wuxuu dhahayaa gabadhaas ay maanta iga xanuunsanaysaa gabadhan kale waxay dhahaysaa anigana tiyareyd maalintii ma arkaysay tii baa aniga xanuunsanaysa isbitaalka darteeda ayaan maanta u joogaa ayay dhahaysaa isla markaana wuxuu arkayaa haddana habeennimadii ayadoo fiirinaysa
dhismo weyn isla markaana dhahayso dhismaha dabaqa toddobaad wax saas oo kale ah hadduu iftiimo qaybtiisa saddexaad walaashay wanaag ee usoo socda. Kadibna telefonka ayay geynaysaa clock meesha lagu magacaabo ama applicationka clock lagu magacaabo daqiiqadeer ayayna qabsanaysaa in uu dabaqa toddobaad daaqadiisa saddexaad ay shidmato. Nasiib wanaagse wuu shidmanaya marka u dambeysa iyadoo wayna farxaysaa. Sidoo kale beerkii ayaa soo booqanaya Tolga runtii wuxuu ku dhahayaa aad anaga waxa dhacay balse gabadhan lagu magacaabo Leila waa mid aqli badan sidoo kale xoog badan insha Allah way caafimaadi doontaa ayuu beerka dhihi doonaa. Beerkina hadda wax uqdada uma hayo gabadhan yarkan lagu magacaabo Tolga. Dhanka kale waxaan arkaynaa qoftii nabhad ahayd oo maalmaha kamid iska socoto kaalin shidaal joogta ayaa waxay arkaysaa Ayla oo gaari jiir rabo isla markaana Ayla ay badbaadinaysaa. waxay ku dhahaysaa Ayla runtii waad dhima rabtay. Aylana waxay dhahaysaa nabhada way badbaadisay runtii waad mahadsantahay. Ugu dambeyntii wax wada ay doonaan ma shax wada cabi doonaan. nabhadna halkaas ay sanbadi ka diyaarsanaysaa waxa ku dhahaysaa aniga ninkaaga runtii wax kuma sameyn yacni iska kicaf walaashay saaxiibtinimadeena hore soo celiya inaan soo celinaa rabaa aniga aad ayaan ku jecelahay balse inay heshiiyeen lama hubo bal xalqada soo socdayaan arrinkaasi asagana ka daba tagi doonaa. Haddana sidoo kale maalmaha kamid waxa dhacaysa isla xalqada u dambeysay yarkii Cumar ahaa in aabihiisa u yeero isla markaana lama filaan aad u qurux badan u diyaariyo lama filaankaas oo ah mootadaas inkastoo xalqada dhamaadkeeda waxyaalo qaar oo badan ka boodnay balse waxaan idin sheegayaa in si rasmi ah u soo laabanay cilad walba oo channelka ku timaadayna aan soo xalinay. labada channelba si joogto ah ayaan insha Allah fiidiyoo soo dhigi doonaa balse muuqaalkan waxaan ugu talagalay arrimaha ugu muhiimsan xalqadii na soo dhaaftay. Haddaba Axmed Ilmaaz wiilkiisa Cumar iyo casho ugu yeeraya kadib markii wada casheeyana mootada ayuu sii doonaa. Dhanka kale dabcan gabadhii Suuse ahayd caakif ay ilaalisa waxa ku dhahaysaa adeer caakif boolisku kugu soo socdaanay sii qaad kaamirooyinka. Kadibna caakifna camera waxay duubtay flashtii ayuu soo qaadanayaa ama hard diskiga ayuu soo qaadanayaa kadibna sidaas ayuu ku qarinayaa. balse ugu dambeyntii doctora jaasuusada ahayd oo caakif jaasuusada ahayd ayaa waxay dhahaysaa Leila xaaladeeda wuxuu intaa caakif ay u diraysaa caakifna Suuse ayuu soo dirayaa isla markaana xilligaas Doorukiyo Suuse iyo kulli wada joogeen. kadibna waxa dhacaysa in gabadhii lagu magacaabay Leila xaaladeedu ay xumaato balse intaysan dhiman ka hor horta dhiigii maskaxda kaga furmi waa la joojin kari waayey balse intaysan dhiman ka hor waxaa la dhahayaa doctorada Leila Tolga waxay ku dhahaysaa walaasha runtii dhiigga maskaxda kaga furmay mana soo kici doonto sidaas ayayna ku dhimanaysaa balse intaysan dhimanin waxaa rabnaa inaad go'aan degdeg ah qaadatid. gabar yar waxaa jirta miskiina oo qalbi rabta qalbiga in loo saaro inkastoo wadna aan filaya laakiin si aan qalbi ma lahaayeen yani qalbi wax la taabsan kara ma qalbi wadna ayaan filaya inuu ahaa. kadibna gabadhaas yar waxaa rabnaa in aan u gelino wadnaheeda ama ogashahay go'aan degdeg sida ugu dhaqsiyaha badan qaado. runtii murugo badan ayay ahayd intaasi. kadibna wuxuu ogaanayaa gabadha yar inay ahayd gabadhii Leila maalintii u dambeysay soo barteen balse aduu calaa kulli xaal inuu go'aankii qaatay in kale yahaa kamana maqalin iyagoo oo ooyi ayaa noogu dambeysay. dhanka kale waxaan arkaynaa Cumar oo mootadiisii yacni aabihii la casheeyey isla markaana soo bixi rabo iska soo yin rabo heedhe ayaa wuxuu arkayaa gabadhii Suuse ahaydoo dhimashadii Leila ka soo oraday oo saarbi u timaado habsiinaysa. xalqaduna halkaas ku dhamaanaysaa. runtii xalqada aad iyo aad u xiiso badneed waxay leen ka badnay muuqaalada xiga si u dhaqsiyaha badan ula soco muuqaalka like saar channelka subscribe saar wanaag saaxiibkiina Khalida. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.